marka shubooyinka ay soo arooriyaan dadka muslimiinta ku gaalaysiiya xaqdarrada oo ay badan yihiin, laakiin badanaa waxay ku wareegaan dhowr nuqdo. nuqdada koowaad waxay tahay wax khawaarijtii asal u ahaa oo ah sideedaba waxaan dembi ahayn in dembi laga dhigo, marka dembi laga dhigo kadibna la yiraa qofkii ku dhaca waa u gaaloobay. marka waa waxaan jirinba oo aan sal lahayn, wax markii horeba mubaax iska ah oo xalaalay yaa dhici karta qofku inuu yiraahdo waxani waaba gaalnimay gaarsiisan yihiin oo diinka looga baxaa. markaasuu markaad ku khilaaftana uu ku leeyahay waad gaalowday. taas marka waxaad mooddaa iyadu wax sii shida badan maaha, sababtoo ah culammadu waxay dhihi jireen ahbit ilcarsha uma nqush. bal marka hore carshigii iyo kursigii qurxoonaa marka hore diyaari, kadibna sii qurqurxi. marka waxaan asalba lahayn macnaha shubho macna la noqon maayaan oo juhdi badan u baahan. sideedana gaalaysiintu waa shay sharci ah. qofku markaad leedahay waa gaaloobo diinku ka baxay, arrintaas waa arrin sharci ah. waa in waxani ay ku cad yihiin shareecada inay gaalnimo yihiin. marka ay caddaato kadib inay gaalnimo yihiin yaa waxaa loo yimaadaa qofkan adadu aad gaalaysiinayso horta sideedaba waxaan ma ogyahay, horta ma ogyahay waxaan inay sharciga khilaafsan yihiin sideedaba horta ma ogyahay. qofku jaahil buu noqon karaa moogta. qofka hadda soo islaamay oo aanba loo sheegin in zinadu ay xaaraan tahay, khamrada in la cabay inay xaaraan tahay, oo khamro cabay, balka waran haddaad tiraahdo istaxalla alxaraama fa huwa kaafir. culamadu waa sheegi jireen fuqahadu moogta iskuma khilaafsana masaladaas. qof maaragta xadiidu cahdin biislaam ah inaan lagu takfiirinaynin wax uu maalan inkiray oo ah umuurihii macluumun min addiini bidaruura la dhihi jiray yuuba inkirayba. waana dhacday wakhtigii khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu. gabar yar oo jaariyad ahayd oo macnaha addoon ahayd yaa waxay ku dhacday zino, sida bayhaqi uu ku wariyey sunan kubra. markay zinadii ku dhacday yaa laga hadlay arrinkeedii. marka saxaabadii markaa joogay qaar baa yidhi khalaas waa in xadkii lagu oofiyo. cali ibn abi taalib baa wuxuu yidhi araahaa tastahillu bihi kaannaha laa taclamu. waaba maaragtay la dhawaaqaysaa oo ma qarsanaysaba, wax kulayla waxaan kuma hayaan. waxaad mooddaa inaanay cilmi u lahayn. lagu wadi waqtigii saxaabada la joogaa, markaasaa gabadhaas muslimkii la noolu aanay garanaynin in zinadu xaaraan tahaba. sidaasaa marka xadkii looga daayay. marka qofkii waxaa dhici karta isagoo casrigan jooga jahliga badan dartii inuu ugu dhaco wax diinkii looga baxaayo laakiin aan lagu gaalaysiinayn. sababtu waa maxay? maba yaqaanba waxaan inay gaalnimo yihiin. kuma bannaana marka taas adiga inaad samayso oo aad takfiiriso oo aad diinkii ka saarto qof jaahil ah. allana wuxuu yidhi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula. annagu kuwa wax cadaaba ma nihin ilaa aan rasuul ka soo dirno. rasuulkii macnaha xujadii buu dadka u caddaynayaa. haddii rasuulkii sala allahu calayh wasalam wixii uu la yimidba qofkan aanay soo gaarin, macnaheedu waxay la mid tahay dhinacaas marka laga fiiriyo sida iyadoon rasuul imaanoo kale. sababta waa ka madowda asaga, cilmigii rasuulku sal ll slam uma imaanin. sidaa darteed waa macduur, alla marka cadaabi maayo. wixii marka qofku hadduu jaahil ka yahay kuma gaaloobo. waxaa kaloo aad u baahanta inaad ogaato qofkan xataa waxaan gaalnimada lagu xukmiyo sharciga ay ku jirto inay gaalnimo yihiin, waxaan ma u qasday mase uma qasdin? qasad ma uga dhacday oo makasuu u sameeyey mase uma samaynin? qof baa wixii khata uga dhacayaan, sida ninkii maaragtay ratigiisa uu ka dhumay oo kale, oo maaragtay sahaydiisa ay u saarnayd, aad u walwalay, maruu quustay oo isqibleeyey oo inuu maaragtay dhimanayo iska niyeystay, yaa alla u yasiray oo daabadii oo kor taagan buu arko wixii o dhan u saaran waxba ka maqnayn. markaasuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk. rabbigeew
الله أدو حتى أدون كي أنوجنا ربي قاعدين هذا الكاس مركز سيدي أقعده قال لي ما يا مسماه قال لي ما يا شكو مجرو لكن وحي الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح فرح بدنان درتي فرح كبد بطي يلقى في قف كأنه عاصر كلام قال لي ما تكون حكميسا حقه ما اللي قال لي ما كون حكمته صبته وخالد دمي دعادي آخر سورة البقرة كجرتي يا مؤمنين يكون دعيسنا أيام محيهيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلهو هنو قبنين هدي أن وحلمانو وأن هلمان كو سمينو أما أن قف كو سمينو رسول كنا صلى الله عليه وسلم شاقي قد فعلت إن ألوير وأن يالي ويحي أد هلمان كو سميسو أما أد قف كو سميسو لقو قبن معايو هدانو كو تعلقين حق ذاتك الإليين markaas qofku waa yaryahayo ma qaangaarin iyo ma ogeyn iyo markaas uma sameynaya la dhihi maayo qofkii dadka xuquuqdoodu waa leeyihiin waa in xuquuqdooda la siiyo laakiin wuxuu ku saabsanaa xaqullah nisyaan iyo khata hadday jiraan qofka loo qaban maayo marka waa inuu qofkii wixii cilmi uu leeyahay oo maaragtay kasna uu u sameeyo oo qasad ay ka tahayoo aanay khata uga dhicin waxaa jira marka taas waxay ay timogta shuruuda qofka markuu yani gaalnimo ku dhaco yani looga baahan yahay inay sugnaato si gaalnimo loogu xukumo waxaa jirta wax la yiraahdo mawaanic qofkii wixii gaalnimada waaba ku dhacaba hadda waxaan ka hadlimayno waxaan jirinba in dadka lagu gaalaysiiyo waa waqti waadu yaryahay على كل حال قفكي مثلا أباه تفاصيل وحاجرته يعني دور رسالة عن كقري وحن تكفير ككسابسا مقال ليراهدو قاليسين قرد الرأة أو إنترنت كالجه لكرو أو شروطه يا موانع دي واحد أنا هو حضلي وحاجر أرمو يعني سيجارة أهل العلم يقول فهم سيهين أو شبهات كأيجو جوابان oo iyadana aan baxthi ka qoray shuhaat al-mukaffirin bi muwalaat al-kuffar wax leeyahay gaaladii weel laga dhigto sokeeye iyo wax noocaas oo kale laga dhigto ama maarad loo gargaariyo wax noocaas oo kale risaalan ka qoray iyadana oo mowduuc ay aad u adeegsadaan dadka xaq darrada dadka ku gaalaysiiya oo aanay tafaasiisheedii aan aqoonin نقطوين كنوع عاصو كلا وحيو باهين كل أهل علمي إن مارتي وح لقوا يديو ولا قال تشهدوا إسكال سوبود معها تكفير أنتو إسكال سوبود معها قف واحد يقتن وحمالينا أو ليه إلا حنا قف كان حتى قال لي كتاي أما حتى إسلام كانوا موجود صحابة كم الجيران رسولك صلى الله عليه وسلم وادي رسولك صلى الله عليه وسلم وادي قف إسلام ما موجستي هنا قال ما إسقى حكمته أصور هذا قالها وده قال يسين سيد مارتي حديث كي جندب بن عبد الله وسامي بن زيد يكوجرتي قفوا دي لي مركز أسامة أو رسولك صلى الله عليه وسلم آدو جعل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيري أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محود دي قال له عقيدتنا يا سوما قال له عقيدتنا لكن هو قال ضمن يظن إنكو هد وقالها لا إله إلا الله وحواجب كوا هنا كجوكت أو الدلين وكاسو كوع علي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله واحد دي شيء مركو لا إله إلا الله يركض بعد الشيء وكوع على المركز وحير أسامة مسألة لقوا برار قلوب هي واتاس فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ويقول علي رسولك صلى الله عليه وسلم واو نفس أسامة وحن جعل ضيبو يري إن المالك سوى إسلامه سمارة عملك صالحة هذا يقول بالله وحود دريامي إنه وحوين كدعي marka gaalaysiinta muslimka la gaalaysiinayaa wax sahlan ma huwa wax maaragtay aad aakhiradaada ku weynayso adigu adoo ribax raadinaya hadaad khasaaro ku dhacdo ka war oo aakhiradaada aad baabiiso oo aad naar ku gasho qof muslima maaragtay oo gaalnimo ku xukumayso man qaala li akhihi ya kaafir faqad baa bi ahaduhuma wali rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofkii walaalkiis ku yiraahdo gaal baa tahay labada qof baa la noqday hadaan marka gaalahayn oo aanay ku sugnayn arintaasi adiga kugu soo noqonaysaa marka arrinkaas arrin sahlan maaha in la fududeysto maaha masaa'ishaasna uu meelaha ay jirto yaa loogu noqonayaa wabillahi tawfiiq جزاك الله خير بارك الله فيك أد بعض ما سنتهاي دكتور عثمان
kelimada kooban ee noo soo jeedisay